madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta safar dhinaca cirka ku soo gaaray magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal. Wafdigani ayaa waxa gobolka ku soo dhaweeyay barasaabka gobolka Salal iyo duqa degmada Saylac iyo waliba dadweyne kale oo aad u tiro badan. intaasi kadib wafdigani wuxuu warbixin ka dhageystay duqa degmada Saylac mudane Saacad Daahir Ciga Riiraash iyo waliba barasaabka gobolka Salal mudane Mawlid Maxamed Nuur. mudane madaxweyne anu waxa ku doobiyay degmada Saylac mar haddaan kaaga warbixin kooban kaas iyo wixii ka dhacay degmada Saylac digniinana soo gaaray la leeyahay dadka xeebta ha ka guuraan oo laga saaro madaxweyne waqti cadad ku soo hadalta noo timid madaxweynuhu waxa la sheegay riboodka hore wahay wax kasto gobolka ka dhacay saacad baa loo wada socday xaaladda gobolka uu ogaatay noo keentay wata madaxweyne markii xaaladdan digniin soo baxday gobolkana afar degmo ka koobay afarta degmo digniin baa siiyay in dadka biyo mareenada laga raro anagu markaa aanu sii dalabno alxamdulillah intii noo suurta gashay waa naga fulinay sida degmada Saylac xoog looga deerinayo lahaa oo bay galaysaa ilaahayna waa nagu gargaaray kormeer baan imika u baxnay kormeerkaan u baxnay wax ku soo marnay garbadada iyo boon iyo xariiro anagoo xariiro bartanka ka jirnay waa naga soo baxnay intii madaxweyne halka waxa taale xaalad adag xaaladda kulli qoraal iyo ribood baan ku soo gudbin doonaa dawlad ahaan laakiin xaalad laga murugooday ahayd waana la soo qaybsanay dadkii darafta madaxweyne waxa kale gobolkan ku soo dhawow gobolkani waa gobol xeeba gobolada kale ka duway duruufo badan runtii way yaalaan insha Allah bismillaah kariim maadaama dalka dawladda dadka waxaan sheegay wax badan loo qaban doono goob kastana waan soo maray intii markaa soo magacawday alxamdulillah madaxweyne ku soo dhawow. intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa uga mahad celiyay mas'uuliyiinta gobolka Salal soo dhaweynta diiran ee uu sameeyeen iyo waliba dadweynaha halkaasi kula kulmay waxaanu halkaasi ka tacsiyadeeyay dadkii ku geeriyooday waxyeeladii ka dhalatay roobabkii lixaad kale ee ka da'ayay toddobaadkan soo dhaafnay gobolka Salal iyo xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa kale oo dadweynaha halkaasi kula kulmay u ballan qaaday inay soo gaari doonaan dhawaan gurmad ka socda dhinaca xukuumadda. abaara iyo kuweel bayna soo maray haddana nimcadii timid dhibaato weyn baa ka dhacday ilaahay waxaan ku rajaynayaa nimco aan nusqaan lahayn inuu inoo shubo oo barwaaqo iyo nolol wanaagsan inoo horseedo wixii dadkaasi naga qaaday allah u naxariisto wixii wax ku waxyeeloobay ama guri ha dumiyo ama xoolaha ka dhinteena iyagana cawil khayr qaba laga siiyo maanta haddaan mid waxaan wahay laba diyaaradood tii kale saaka waxay digtay xariir gurmadkii way soo gaaraya taa ka ururina gurmadku uu imanaya waxa kale oo ii sheegaya maalintay dhibaato kugu dhacdo nin waliba intuu ku jiro ayaad ogaataa gurmadu waxa ay noogu horeeyay Jabuuti waa inta istiradii waxa noogu xigay Imaaraadka Carabta oo halka soo duulo diyaaradii u horeysay ma labaadii kale tii u horeysay tii Jabuuti waxa saaxiibo badan oo kala soo socda waa ilaahay walaalayaal waxa la sheegay laba dawladood magacaas